السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أوناكسان داوديال ميل والبه oo aad dunida daafaheeda aad naga daawaneysaan halkan oo barta aan ku leenahay YouTube-keena Family Lifestyle fadlan haddaad nagu cusub tahay haddaba nagu soo bir oo channelka subscribe inoo saar haddii aad hor nooga mid ahayd muuqaalka mar alaala markuu soo gaaro la garay oo share garay oo asxaabtaada la wadaag mid ka mid ah hooyooyinka Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Hargeysa ayaa waxa ay ka tabanaysaa bulshadii ku hareersaneed ee agagaarkeeda ka dhawaa iyo qaar ka mid ah familkeeda oo inta badan ku aflagaadeynaya cudurka halista ah ee dilaaga ah HIV/AIDS-ka oo uu ku dhacay haddaba waxa ay sheegaysaa hooyada Soomaaliyeed cudurka HIV/AIDS-ka inaysan ka qaadin zino ama dambi ay ayada gashay laakiin sababta ninkeedii darteed uu dhacay waxa ay sheegtay ninkeedii inay kala tageen mar alaala markii ay kala tageen muddo dheer kadibna ay ku heshiyeen inay dib isugu soo laabtaan waxa ay tiri waxa uu ii qariyay cudurka dilaaga ee HIV/AIDS-ka oo uu soo qaaday mar alaala markii aan kala tagnay markuu ii yimidna halkaas ayuu igu talaalay oo markaan ogaaday cudurka dilaaga ee HIV/AIDS-ka inuu igu dhacayna waxa aan la wadaagay asxaabta ehelkii qaraabadii intii iga agdhaweed ee aan family ahayn laakiin nasiib darro waxaan ka filanin ayaan kala kulbo ah inay igu faquuqaan igu aflagaadeeyaan bulshada halkaasi ku hareersan ee ugu cunsuriyeen waxa ay tiri aniga cudurkan ilaah baa ii keenay sababta ninkeyga ayeen iigu dhacay aniga maahi qof zinaysta amba dambi galay laakiin waa sabab imtixaan oo ilaahay iigu tala galay cudurkan waxa ii keenay waa ninkeyga haddaba hooyada Soomaaliyeed ayaa waxay bulshada Soomaaliyeed u sheegaysaa cudurkan qof kasta inuu ku dhici karo waxa ay tiri qofka cudurkaas qaba kaliya oo dhacaankiisa ku gaaro ayaa kugu filan sakiin oo isticmaalay shay oo isticmaalay oo dhacaankiisa ku halaabay oo aad adiga isticmaasho ayaa kugu filan dadyoga qaar waxay tiri waxay ka qaadaan zinada amba dambiyada halkaas ay sameeyaan amba Google Dhaaf ay sameeyaan ay ka qaadi karaan qaarkoodna waxa sabab u noqon karo ninkooda oo dambi uu ku soo dhacay asaga in ayagana sabab u noqdo in cudurkii oo sidaas ku haleelo waxa suuragal ah gabadhii in ay dambigaas soo gasho sidaas darteedna ay ku qaadsiiso ninkeeda aniga waxay tiri waxa ay qaadsiye ninkeyga haddii aad adiga maanta caafimaad qabto ilaahay ugu mahad celi adiga cudurkaas ilaahay uu ku keeni karaa wuuna ka qaadi karaa sidaas daraadeed ma ahan inaad dadyoga halkaasi joogan ay ugu aflagaadeeyaan ay hooyadaasi ku cabanaysaa bal maanta waxaan rabaa inaan halkan muuqaalkeeda ayada oo dhibaatadeeda ka hadlayso bal inaan si wada jir aan daawano أنا فرين باندريا باق باندريا دل إيه دبدة تذكر عافمات كائن قبوا إسرائيلية دنيرتين أنا لو حنون كان حرام وقوموا منه تينك يجيانو كلا تجنو من دي بيسقون نقنا تاسون بينك قتمي مركب وين لسبارو وين هاي تكورين ولانين سود ويسام كان مقشان قف كاس عنو بلونودي وين تسود ويسان يا إن وين محيط إذن كنا إسرائيليان mid kalena oo heerey laabay hadaan xasuustay baarlamaanka cusub waa inaad agaasimo noo gaarsiisaa dadku xaq buu leeyahay dadka caafimaadka qaba xaq bay leeyihiin annaguna xaq baan leenahay iyo xaquuq heer waxa jira dad xanuunka la nool oo de suuqa ku jira oo waxay doonaan sameynaya heer annagana na qabta dadka caafimaadka qabana qabta waa in la soo saaro baarlamaanku saxiixa cusub daawadayaal waan filayaa inaad muuqaalka aad daawateen haddaba hooyada Soomaaliyeed waxay codsanaysaa dhammaan lamaanayaasha hadda guur iyo guri inay yagleelaan jecel in ay mar walba ahaadaan kuwa isbaara xag caafimaad waayo waxa suuragal qofkan si kasta inuu ku qaadi karo in qofkan qof xanuunkaas qaba dhacaankiisa kaliya uu gaaro eesaas uu ku qaadi karo kadibna uu ku qaadsin karo bulshada inta ku badan haddaba hooyadaasi waxay codsanaysaa in dadka cudurkaas qabo ee xuquuqdooda la ilaaliyo oo aanan inta badan loo gafin ee la ilaaliyo si wanaagsan loo dhaqmo walaalaha Soomaaliyeed waxaan idin ka codsanayaa inaad wada duceysaan inta xanuunsan inuu Ilaahay caafiyo inta caafimaad qabta inuu Ilaahay u siyaadiyo fadlan cudurka Ilaah ayaa u keenay Ilaah ayaana ka qaadi karo yaana lagu diganin yaana lagu fogeynin yaana lagu aflagaadeynin adiga Ilaah wuu ku keeni karaa haddaad adiga caafimaad qabto maanta الحمد لله أي واجب هو إلى تراه وأن إلهي ومحد عليسو قفك حنوصن وحواجب هو ولالك إن أدعو عيسو إنه إلهي عاف ما تعصيه وكم حسن تاي داوشة المقال كان وحن كحسسنا يا حداد نقول عصب تايني إن أنا نوصل بيرتو جنا كسب سكراب نوصارتو
haddii aad hormada mid ahayna muuqaalka la garay oo share garay oo asxaabtaada la wadaag muuqaalkan kan xiganta kulmi doono waxaan idin leeyahay nabadgelyo salaamaya meel walbo aad dunida ka joogtaan maanta sidaad ii jeedaan oo aad aragtaanba waxaan dhex joogaa dukaanka Elice Beauty Product oo maanta aan soo booqday walaalahayga dukaankooda sa u jeedaana haddii meesha dhan wada creamo waa laba creme iyo saliid ayaa halkaan taala creme-kan oo kale markaan idinkaga soo qaado waa Elice Beauty Product waaye laakiin creme-kan waa jirka boodiga waaye boodigu qurxinaya smooth kaaga dhigaya ku hagaajinaya jirko dhan coffee ba ku jira de coffee-gana sidaan ognahayba jirka aad u qurxiya guriyaha marka la joogo caadiga ahaaba jirka de gabdhuhu ay ku hagaajistaan marka creme-kan jirka uu ku qurxinaya whitening uu leeyahay chemical ma ahan laakiin waxaan ku yiri waa kaal iska lagama sheekeyn karo gabdhihii isticmaalay ana waxaan maanta nasiib u yeeshay inaan imaado inkastoo saaxiibo badan ay iga soo horeeyeen laakiin maanta imaaday creme-ka yaa loo dayma la'aanin soo fiiriya jirka waaye waxaa jira mid kale asagana wajiga ah ka marka laga soo tago oo jirka ah wajiga markaan soo qaadana waa kana midka wajiga asagana cajiibkiisa waaye wajiga waxay ku kobcinaya madmadowgu ka jaraya haaraha qof kale wajigiisa maxaa la dhahaa ama daalka badan uu ka muuqdo haddii intaasoo dhan waxaan ku yiri wala tagayaa kan waa wajiga kan waa jirka Elice Beauty Product waxaa maraysaa inay gabdhaha u soo hiilisay oo waxay u baahnaayeen ay mar haddii jirkii loo keenay waxaan chemical lahayn aad ku qurxinayso dee wajigiina loo keeno waxaan ku dhahay kaal iska arag waxaa idin soo hartay saliidan Elice Beauty Product ay soo saaraan walaalahayga saliidana u jeedaan waa Elice Natural Oil waaye waa saliid natural ah saliida fara badan ka samaysan maxaa loogu talagalay gabdhaha ay gidaarta gashay haddii wax yar tinta ay kaasi ka tahay is ognahay masarka yacni badi aad xirato oo tintaadu ay wax yar gadaar u baxday saliida waa ku anfacaysaa toonka ku jirto avocado ku jirto de waxyaabo badan ku jira oo waxaan ku dhahay madaxaaga ku soo celinaya sidii hore tintaada gabdhaha kaliya ma aha wiilasha laftirkooda gidaarta ay gashay aad ay anfacaysaa hal soo tijaabiyo haddii de madax uu ka daadanayo ama dandruff yacni aad qabtay agool hadda kadib ma dhibtoonaysid saliidana lagu keenay Elice Beauty Product ku keentay bal soo tijaabiyo midaana aniga waan tijaabinayaa